argagixisadu ay leysay ee wadooyinka qaraxyadii ka dhacay wadooyinka ku teedsan meesha golaha shacabku ku yaallo annagoo ka soo tallaabsannay burburkii dhismayaashii ganacsi ee goobahaas ku yaallay baabuurteennu ka soo tallaabsatay nimid golaha shacabka dadka Soomaaliyeed wakiil u ah sidaan sheeganno wakiilada dadka Soomaaliyeed oo ka turjumaya dhibaatooyinkii waxa haysta in maantay markii aan golaha nimid xildhibaanada ajanduhu ahaa dastuur ayaa la yiri ajanduhu ha noqdo iyadoo dalka dhibaatooyinkaas oo badan ka jiraan waxaan annagoo 20 xildhibaan ku dhow gudbinay mooshin ajandaha lagu darayo dastuurku sidiisa ugu jiro lagu darayo in amniga dalka ee xumaaday amni darada jirta in lagu daro ajanda waxaa dhacday in golihii xukuumaddu oo 60 xildhibaan ku dhow in 4 kaliya ay ka timaado ayagana aan u malaynayo inay safariintu gaarin ka baaqashada in laga baajiyo fadhiga golaha shacabka waxaa ka sii ayaan daran in guddoonka golaha shacabka oo sugi jiray ilaa kowda si kooramku u buuxsamo markay danaynayaan ayagu ajanda in 12kii 5 saacadood asagoo 1 saac u jooga 4 saac bay yimaadeen 5tii saac markay ahayd oo 1 saac kaliya ay joogaan oo ay dhiman tahay dhowr iyo 10 xildhibaan oo waliba soo galay intuu hadlayay qaarna wadada ku soo jireen in uu sugi waayay baarlamaankii fadhigiisii maanta lagu ballansanaana uu sidaas ku xiro ayadoo 2 bilood iyo bar ay dadku fasax ku maqnaayeen oo golaha shacabku fasax ku maqnaa maantana laga sugayay inay shaqo bilaabato maalinkii shaqadu bilaabanaysay in guddoonka golaha shacabku uu yiraahdo saacad baan fadhiyay saacad kale kuma dari karo runtii ayaan darro weyn oo dadka Soomaaliyeed iyo golaha shacabku soo hoyatay wax laga filayay iyo waxaan filaynay iyo waxaan u fadhinayna ma fasax baa 2 bilood la jiray iyo bar biliy waxay 15 maalmood ka hor golaha shacabku inuu furmo ma furmin maanta markuu furmana si degdeg ah lagu xiray arrintaasi marka runtii arrin ummadda Soomaaliyeed qabato maahan dad Soomaaliyeed baa maanta u soo hanqaltaagay war ama laga hadlaa ajandada soo qaadanaya amniga la xisaabtanka golaha fulinta golihii fulintuna wuxuu noqday mid baarlamaanka ajandayaashiisa asagu xukuma oo ajandaha lagula xisaabtamayo amnigii bay dayaceen markii la yiraahdo la xisaabtamana fadhigii bay baajiyeen dadka Soomaaliyeed marka waxaan u sheegaynaa inaanay cidda amniga u xil saaran iyo madaxda hadda meeshaan joogta filla Soomaaliya inaysan ka damqanayn xataa in laga hadlo waxa naga qaldan in la saxo waxa naga qaldan la maantana buruuf cad bay u ahayd dastuurkana ma rabaan in laga hadlo amnigana ma rabaan in laga hadlo marka runtii ayaan darro weyn weeye laakiin ajandahan wuu taagnaanayaa baarlamaanku fadhi kastuu furmo wuxuu noqonayaa midka horay uga jira in laga hadlay tahay in la soo istaajiyay tahay dadka amniga haddii damiirkoodu uu casili waayo haddii ay casili waayeen 5,000 oo qof oo 2 sano dhimatay haddii ay casili waayeen 8,000 oo qof oo dhaawacantay haddii damiirkoodu uu casili waayo hantidaas burburayso tirada badan halkaana lagu casilayaa halkaan baa lagu xisaabtamayaa suurtagalna ma ahan in gudoomiyaha golaha shacabku maalinba buris ku dhufto yiraahdo fadhiga waa xiran fadhigu waxa furaya qofka ugu da'da weyn haddii gudoonku baxo oo looga hadlaya qadaayaadka jirana waa looga hadlaya tan maanta way dhacday laakiin kan soo socota sidaan u malayn mayo in annaguna aan aqbalayno dadka Soomaaliyeed ay naga aqbalayaan argagixisaduna inay disho jidcadayaashiina hadda laga xirto haddana la yiraahdo issueskeedii iyo dhibka jirana lagama hadli karo marka runtii ayaan dareeyahay laakiin waxaan u taagannahay inaan dareenka dadka mar walba soo gaarsiino golaha shacabka